tan waa xidigta xagga fanka ee leh cod aad u macaan. Fanka waxay ka raacday hooyadeed Aamino Cabdulaahi oo horey fanka uga mid ahaan jirtay, waxayna leedahay taalanta iyada u gaar ah marka ay masraxa taagan tahay oo ay heesayso. Magaceedu waa Hodan Cabdiraxmaan Dheere. Sannadihii dambe waxay ahayd gabar leh taageerayaal aad u xiiseeya xagga fanka, waxayna ku soo biirtay wixii ka dambeeyay fanka 2009kii. Hees ay hore u qaaday hooyadeed Aamino Cabdulaahi oo lagu magacaabo Siyar ayay ku soo baxday, kadibna waxay gacanta u gashay abwaaniin u sameeyay heeso dhaxal-gal ah. Bilowgii 2014kii ayay booqasho ku tagtay magaalada Hargeysa, halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen kooxda Xidigaha Geeska. Soo dhoweyn iyo weynayn kadib, waxa ay hees jacayl ah la qaaday xiddiga reer Boorama oo isku deegaanka yihiin Mursal Muuse Saygii Khadra Silmoon. Heestaas Khadra waxay ku noqotay leeb wadnaha ka haleelay kadib markii odaygeedii ay ku akhrisay amaba ay ka dulqaaday Hodan Cabdiraxmaan. Dad badan ayaa qabay in Hodan iyo Mursal wax ka dhexeeyaan qaabka heesta iyo eegmada markii fiidiyowga laga duubayay heestaasi. Khadra Silmoon oo aaminsaneyd in odaygeeda uusan naag oon iyada ahayn uusan eegaynin ayaa ku soo baraarugtay kadib arooskoodii. Waa Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan Dheere. Mursal ayaa muddo kadib u batay xagga Hodan Cabdiraxmaan oo la sheegay in ay ka jir qurxoon tahay Khadra Silmoon. Hodan ayaa horey saygeedii u soo furay kadib markii ay Muqdisho fan ku qabatay, islamarkaana uu helay muuqaallo iyo sawirro iyadoo rag kale la baashaalaysa amaba la qayilaysa. Taasi waxay sababtay inay garoob noqoto oo ay kala tagaan ninkeedii hore. Hadda Mursal dhego iyo indho aan lahayn Hodan Cabdiraxmaan ma lahan, oo wuxuu hilmaamay naagtiisii hore Khadra Silmoon oo ku soo afbilowday iyo carruurtii u dhashay. Waana midda la yiraahdo rag iyo waayihii, sida Khadro ay noo sheegtay.